ciidamo maanta qabsaday madaxtooyada Soomaaliya iyo afgembi military oo farmaajada macsanaa oo fashilmay wadooyinka soo gala madaxtooyada ciidamo la dhigay iyo ra'iisul wasaare Roble oo lagu go'doomiyay xafiiskiisa wararkii ugu dambeeyay xaaladda madaxtooyada ayaan eegaynaa farmaajo ciidamadii ugu badnaa dulliga xafiiska ra'iisul wasaare Roble afgembigaas oo fashilmay iyo falcelin dib laga sameeyay waxaan kaloo aan soo qaadan doonaa war ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble waxaa si cad lagu sheegay inuu fashilmay inqilaab la doonayay in lagu sameeyo ra'iisul wasaare Roble haddaba sidoo ku fashilmay waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixino ku saabsan waxaa kaloo saaxiibayaal qayb ka noqon doona Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in afgembi military la isku dayay laakiin madaxweynihii hore aysan u suurtagelin in afgembiga military uu sameeyo waxaa kaloo qayb ka noqon doona Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo qudhiisa ka falceliyay wixii maanta ka dhacay madaxtooyada ciidamadii la wareegay afgembigii farmaajo isku dayay oo fashilmay iyo macluumaad ka qarsoon iyo sidoo ra'iisul wasaare Roble uu ku tagay xafiiskiisa kadib markii farmaajo ciidamo uu dulligay gurigiisa dhammaan warbixinadan iyo kuwa kale muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa idaacadeena qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe inoo dhig gambaleelkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena galabnimo soo dhawaada saaxiibayaal intiiniba wararkeena daawatay oo maanta u badnaa kuwa degdeg ah ayaa xaaladda dalka mar qura isbedeshay iyadoo ciidamada fara badan oo ka amar qaatay madaxweyne farmaajo ay la wareegeen madaxtooyada Soomaaliya sidoo kale ciidamo la dulliga ra'iisul wasaare Roble taasoo u muuqatay inqilaab la doonayay in ra'iisul wasaaruhu lagu soo qabto hase yeeshee warar soo baxaya sheegaya inuu fashilmay inqilaabka oo ra'iisul wasaaruhu damacsanaa haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaan eegi doonaa mar kale macluumaadkan ku saabsan wararkii ugu dambeeyay xaaladda filan Soomaaliya waxyaabaha ka soo kordhay aan soo koobi doonaa magaalada caasimadda Muqdisho waxaa si xoog leh loogu dareemay xiisadda siyaasadeed ee ka taagan filan Soomaaliya taasoo u dhaxaysa madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhamaaday iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Roble xiisadda ayaa ka sii dartay markii xalay saqdi dhexe farmaajo uu shaaciyay shaqadu ka joojiyay ra'iisul wasaare Roble kuna eedeeyay eedamo musuqmaasuq iyo ku takrifal awoodeed mahasalaadu ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ay muddada xilhayntiisu dhamaatay oo hadda u tartamaya xilka xildhibaannimo ayaa ka la talaabada uu qaaday farmaajo wuxuu ku eedeeyay xalay ilaa Isaaki oo xiray dhammaan jidadka soo galay madaxtooyada sidoo kale go'doon oo geliyay ra'iisul wasaaraha xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegay in eridka SYL laga soo galo villa Soomaaliya ilaa xafiiska ra'iisul wasaaraha lagu jiray beebayaal ciidamo badan la dhigay sidoo kale wuxuu inta ku diray Roble talaabada xigta uu qaaday kara ay tahay inuu isbadbaadiyo uu la dalbaday xubnaha saaxiibadiisa gaar ahaan beesha habargidir inay badbaadiso ra'iisul wasaaraha lama oga sida xaalku noqon doono waxaase weli muuqata xaalad aad u adag iyadoo madaxtooyada Soomaaliya hadda ay ku kala sugeen ciidamo si gaar u ilaalinaya ra'iisul wasaare Roble oo taabacsan iyo ciidamo ka amar qaata madaxweyne farmaajo haddaba saaki waa berigi hore wax lagu soo bariistay ciidamo badan oo la duldhiga xafiiska ra'iisul wasaaraha xaalad kacsanaan ayaana laga soo wareynaya xarunta villa Soomaaliya oo saacadihii ugu dambeeyay la geeyay ciidamo badan oo ka amar qaata madaxweyne farmaajo sida ay noo xaqiijin ilaa lagu kalsoonaan karo wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala ayaa sheegay inuu ahaa isku day inqilaab oo farmaajo rabay inuu saaki u sameeyo hase yeeshee inqilaabkaas ayaa fashilmay sida uu yiri Al-Cadaala Roble wuxuu leeyahay xafiis shaqo dastuurka ayaana siinaya laakiin waxa la isku dayay inqilaab ayuu ahaa waana fashilmay ayuu yiri lama oga xaalka sida uu noqon doono xogihii ugu dambeeyay madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya in madaxtooyadu hadda ay ku kala sugan ciidamo ka mid ah kuwa taageersan farmaajo iyo ciidamo ra'iisul wasaaruhu leeyahay banaanka madaxtooyada waxaa ku sugan ciidamo badan oo taageersan farmaajo karaan ciidamo ka amar qaata wasiirka amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur oo aagag waaweyn ka sameysay meel dhow Martooriyada Ceelgaabta gudaha madaxtooyadan waxaa ku sugan ciidamada farmaajo ka amar qaata kuwaas oo in dabaabaadi gaadiid dagaal la soo baxay ra'iisul wasaaruhu weli gudaha madaxtooyada ayaa isla ku sugan yahay xaaladda madaxtooyada ayaa aad u muuqata aad u adag dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble ayaa qudhiisa soo saaray qoraal adag oo kaga hadlayo afgembiga saaka la rabay in lagu sameeyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo jawaab culus ka bixinaya talaabadii ugu dambeysay uu qaaday madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhamaaday farmaajo ayaa shaaca ka qaaday in shaqo joojintu ku sameeyay farmaajo ra'iisul wasaaruhu ay tahay mid baalmarsan sharciyada iyo nidaamka ayna waxba kama jiraan awoodna uusan u lahayn talaabadaas uu qaado Roble oo ka jawaabaya go'aanka ayaa marka
marka hore farmaajo ku tilmaaminaya madaxweynihii hore oo waqtigu ka dhammaaday iyo nin baalmarsan sharciga. sidoo kale wuxuu shaaca ka qaaday in farmaajo oo u ballan qaaday in awood ciidan uu kula wareegayo xafiiskiisa asagoo ka diiday dhaqdhaqaaqyada ka socda villa Soomaaliya inay sii weynaadaan. ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in farmaajo isku day in awood ciidan iyo inqilaab uu sameeyo, laakiin waxa uu sheegay wixii ka dhashay mas'uuliyaddu inuu qaadayo madaxweyne farmaajo. ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale xusay in wixii mas'uuliyad ay ka dhashay haatan dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka jira magaalada Muqdisho oo mas'uuliyaddu leeyahay farmaajo. ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay ra'iisul wasaaruhu inuu sii wadi doono waajibaadkii loo igmaday asagoo shaaca ka qaaday inay qaban doonaan waajibaadkiisa iyo kulamada doorashada. ra'iisul wasaaruhu wuxuu si caadi ah u wataa shaqadiisa hormaalmeedka waxaana ka go'an inuu sii wado waajibaadkiisa qaran si uu dalka u badbaadiyo. lama oga siday wax noqon doonaan xaaladda iyo waxay u muuqataa mid ka sii daraysa marka loo eego dhaqdhaqaaqa militari ee ka jira magaalada Muqdisho ciidamada faraha badan caasimadda isku hor fadhiya. dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble markii saaka ciidamada la duldhigay ayaa loo diiday inuu galo xafiiskiisii shaqada. wararka ayaana sheegaya in xitaa shaqaalihii ee ka shaqeynaya xafiiskiisa saaki markay shaqada yimaadeen loo sheegay inay fasax yihiin oo iska baxaan, amarkaasna uu bixiyay farmaajo Fahad. laakiin ra'iisul wasaaraha ayaa la sheegay markii dambe qaab efemtari ama soo lugeynayo guriga ka soo baxay oo madaxtooyadu galay. ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaa ugu dambeyntii iska wuxuu jibiyay xayiraadii uu saaray madaxweyne farmaajo madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhammaaday asagoo ka soo tagay gurigiisa asagoo oo lugeynayana lug ku socda ayuu ku tagay xafiiskiisa. Roble oo weelinaya taliyaasha ciidanka xoogga booliiska iyo qaar ka mid ah wasiirada oo ciidamo ka amar qaata wata ayaa la sheegay in ay isku dayeen inay ka gudbaan xeyndaabkii farmaajo u dhigay kolonyadii gaadiidka kuwaasoo la sheegay inuu ka tallaabay Roble isagoo lugeynaya uuna galay xafiiskiisa. ra'iisul wasaaraha ayaa muujiyay dhabar adeeg xoog leh oo ku saabsan shaqaaqa inaysan ka dhicin gudaha madaxtooyada. madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhammaaday ayaa isna isku dayay in shaqadu ka joojiyo ra'iisul wasaaraha oo haatan ay ku murisiin arrinta doorashooyinka. xiisada ka taagan villa Soomaaliya ayaa ka daraysa marba marka ka dambeysa, lamana oga xaaladan soo korortay halka ay ku biyeesho waddoonta. sidoo kale waxaa soo taraya baaqi kala duwan oo loo jeedinayo farmaajo Roble oo laga dalbanayo inay joojiyaan xiisada ka dhex oogan. haddii arrintan sidaan ku sii socoto xaaladda waxay isku bedeli kartaa gacan ka hadal ee dagaal culus oo caasimadda ka dhaca. Soomaaliya way ku dahday xaaladda kala guurka oo ka dhalatay khilaafka doorasho ee hadda ka jira. waxaase laga baqayaa in ra'iisul wasaare Roble uu dulqaadku ka dhamaado oo isticmaalo awood militari taasoo dadka intooda badan ay ka digayaan. dadka waxgalka ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaruhu weli uu wado dulqaad xoog leh oo ku saabsan arrimahan. ra'iisul wasaare Roble ayaa muujinayay asagoo dhex lugeynaya gudaha madaxtooyada oo la arkayay kaasoo xafiiskiisa shaqadan u sii socda. weli warbixino badan ayaa inoo soo socda xogihii ugu dambeeyay madaxtooyada haddaan idinla wadaagnana saaxiibayaal. xaaladda madaxtooyada ayaa u muuqatay mid kasii daraysa marba marka ka dambeysa oo awood militari ayaa jirta, waxaana laga cabsi qabaa in dagaalo culus ay dhacaan oo dhinacyadu ay dagaalamaan. waxaase mar walba la filan karaa in ay dhinacyadu isfarasaaraan. ciidamada dowladda Soomaaliya oo ka gadoosan afgambigii saaki isku dayay farmaajo ayaa la soo warinaya in qaarkood hadda ay diyaarinayaan xaafado ka mid ah Saybiano, Banaadir iyo waliba xaafado ka mid ah degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa la soo warinaya in halkaas uu ka socdo abaabul ciidan xoog leh. ciidamadaas ayaana ah ciidamo u badan beesha habar gidir oo rabta in ra'iisul wasaaruhu ay taageeraan xeelad dhaqaale iyo farsamaba ay ku taageeraan si looga hortago damaca farmaajo ee la xiriira muddo kororsiga iyo in afgambi uu kula wareego ra'iisul wasaaruhu saaka u damacsanaa. haddaba dhinaca kale aan u gudubno warbixinadeena kale ayaan soo koobi doonaa annagoo wax walba oo soo kordho xaaladan aan eegi doono warbixinadeena kale. xasan sheekh maxamuud ayaa afgambi militari ku sifeeyey qorshihii saaki farmaajo damacsana oo afgambi militari oo fashilmay. madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa cambaarayay afgambigii isku dayay madaxweynaha madaxweyneedkiisu ka dhammaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. qoraal uu soo saaray xasan sheekh ayaa lagu yiri waxaan cambaaraynayaa afgambi militari ee isku dayay madaxweynihii hore ee ummadda Soomaaliyeed oo raba in uu afgambiyo. waxaan ku baaqaynaa ilaalinta shuruuciyada dimuqraadiyadda ee dalka ay ku dhisan yahay in la garab istaago ra'iisul wasaaraha
Soomaaliya oo laga hortago afgembiga uu rabo inuu sameeyo. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in Farmaajo isku dayay afgembi military uu rabay saakin talada dalka uu kula wareego laakiin afgembigaas uu dhicisoobay. wuxuu xasan sheegay inaysan hadda jirin wado kale u hartay Farmaajo xafiiska ku sii joogi kara. Farmaajo waxa uu isku dayay afgembi waa isa fashilantay. Hadda waxa muuqda waxay tahay inaysan u harin wax kale kaliya waxa u hartay in la dagaalamo xafiiska laga saaro. Farmaajo kooxda ayaa u muuqda kuwa hadda isticmaalaya awood military. dhinaca kale aan u gudbo Cabdiraxmaan Cabshakuur ayaa isna hadlay dhammaantiin waa inaan tagna xafiiska ra'iisul wasaaraha oo aan difaacna ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabshakuur isna qoraalkan soo saaray. siyaasiga Cabdiraxmaan Cabshakuur warsame ayaa ku baaqay in la taageero ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo laga celiyay Farmaajo sida uu hadalka u dhigay. Farmaajo dowladnimada uma turayo dastuurkana ma dhoorayo guud ahaan Soomaalidana uma turayo wuxuu rabo magaaladan inuu gubo xadgudubyo waaweyn ayaa saaka dhacay laga soo bilaabo weerarkii 17 December ee xarunta xisbiga wadajir shirqoolkii lagu dilay Allah u naxariisto injineer Yuriso 19 Febraayo weerarkii lagu qaaday madaxweynayaashii hore rasaaseyntii lagu firay dadkii banaanbax u dhigayo isagoo qayb ka ahaa ayuu yiri dhammaan waxay ka madal kacayaan in Farmaajo uu yahay dhiig cab oo dagaal u soo jeestay. wuxuu Farmaajo ku safeeyay nin aan lahayn garasho isla markaana magaaladan aan u tirinin ninka sharciga dastuurka ilaalin waayay ma ixtiraami karno. wuxuu noo moodaa nin dad nacasa oo liita oo dabadhilif ah ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabshakuur waa inaan iska qabanaa shacabka Soomaaliyeed aqoonyahanada haweenka dhalinyarada ciidamadu waa inay si dhab ah u soo jeesnaa calooshiis shaqaystana iska qabanaa oo iska xadirina xafiiska ra'iisul wasaaraha ayuu ku cilciliyay. marka laga soo tago warka Cabdiraxmaan Cabshakuur waxaa muuqata in Farmaajo oo isticmaalayo awood military.